بسم الله الرحمن الرحيم. warkii oo fidsan isduwaha komishanka xakamaynta FJF Edis ee gobolka Saaxil Qadar Cabdilaahi iyo kooxda wacyigelinta ee komishankaasi oo kaashanaya hay'adda UNICEF ayaa kuna wacyigelina oo qabtay qaar ka mid ah muqmaalka dekada Berbera iyo gaadiidleyda isticmaala dekadaasi. kulan wacyigelinadkaasi ayaa dadkii ka qayb galay waxaa sharaxaad laga siiyay xanuunka HIV AIDS sida uu ku faafo, siyaabaha looga hortagi karo, sida bukaanada uu asiibay una noolaan karaan iyo weliba sida ay waajibka u tahay in aan la takoorin dadka xanuunkaasi la nool. isduwaha komishanka xakamaynta HIV AIDS ee gobolka Saaxil Qadar Cabdilaahi ayaa ku dheeraatay in xanuunkani la mid yahay xanuunada kale ee dadka ku dhaca, taasi darteedna ay muhiim tahay in bulshadu fahmi fiican ay ka haysato qaababka uu xanuunkuna ku fido. isduwaha ayaa sidoo kale ku gubaabisay xubnihii kulankaasi ka qayb galay inay mudnaan gaara siiyaan baaritaanada caafimaad ee qofku ku ogaanayo caafimaadkiisa, kaasoo ay si bilaasha u bixiyaan cisbitaalada dowladdu. qaar ka mid a dadkii kulamadaasi ka qayb galay ayaa uga mahad celiyey komishanka xakamaynta HIV AIDS sida ay u soo gaarsiiyeen fariimaha caafimaad ee xanuunkaasi. guddidii dhaqaalaha golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxay warbixino la xidhiidha qabanqaabada madasha dhaqaalaha heer qaran ee sanadka 2023 ay ka dhigaysteen guddida farsamo ee ku howlan diyaarinta madasha dhaqaalaha sanadkan oo ka qabsoomi doona magaalada Hargeysa 14 ilaa 15 bishan Oktoobar 2023. guddida farsamo ee diyaarinta madasha dhaqaalaha Somaliland ee sanadkan ayaa tilmaan ka bixiyay arrimaha u qabsoomay. waxaa kaloo ay sheegeen in howlaha qabanqaabadu ay sidii loogu talagalay ay u socdaan. qoraal kooban oo ka soo baxay guddida dhaqaalaha golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland ayaa lagu sheegay arrimaha lagu soo bandhigi doono sanadkan madasha dhaqaalaha 2023 inay ka mid yihiin 9 nooc oo daraasado cilmi baadhis ah oo ku saabsan fududaynta maalgashiga, ganacsiga, adeegyada maaliyadeed, sugnaanshaha cuntada, macdanta iyo weliba ilo dhaqaale oo sal ballaaran oo ay dowladdu yeelato. carwo ganacsiyad lagu soo bandhigayo adeegyada maaliyadda, macdanta iyo adeegyada dowladda ee muhiimka. shirkan ayaa noqonaya kii labaad ee noociisa ah oo lagu qabto Somaliland, waxaana muddada 2 cisho ay u socdo lagu lafaguri doonaa caqabadaha hortaagan xalinta mushkiladaha dhaqaale ee waddanka haysta iyo sidii loogu heli lahaa xal waara. madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax Siisi ayaa ku dhawaaqay xalay inuu markii saddexaad isku soo sharaxayo tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Masar ka qabsoomaysa bisha Disembar ee dhamaadka sanadkan aynu ku guda jirno ee 2023. madaxweyne Siisi ayaa warbaahinta u cadeeyay xalay inuu xaq u leeyahay inuu mar saddexaad isku soo taago tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota. geesta kalena waxay sheegeen mucaaradka inaysan sharaxaadiisu ay khilaafsan tahay dastuurka dalkaasi Masar, kaas oo ay sheegeen inuu ogolaanayo in madaxweynaha uu 2 jeer oo kaliya isu soo sharaxi karo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Masar, taasina ay ka hor imanaysaa bay yidhaahdeen dastuurka dalka Masar iyo weliba qawaaniinta u dhigsan doorashooyinka ee dalkaasi Masar. warku waxa kale oo ku daray in ay dhaawacmeen 38 qof kadib markii dab uu qabsaday dhismaha taniska dhexe ee ciidamada amniga ee magaaladaasi Ismaaciiliya. kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha waqooyiga iyo galbeedka Afrika ayaa iyaguna u soo jeediyey maamulka dalkaasi Algeria in ay isla markaasi uu kala shaqeeyo wadamada galbeedka Afrika ee ECOWAS arrimaha amniga iyo deganaanshaha ee dalkaasi Niger. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay xalay in uu ka dhaxeeyo Mareykanka iyo Algeria iskaashi dhinaca amniga iyo weliba wada shaqaynta labadooda wadan ee arrimaha gobolka. waxaanu afayeenku mas'uuliyiinta Algeria ku adkeeyay in ay kaalin muhiim ah ay ka qaataan xal u helidda arrimaha ka taagan dalkaasi Niger. afayeenku waxa kaloo intaasi kale ku daray in Algeria dadaal u gashay sidii loo baajin lahaa faragelin military oo lagu sameeyo dalkaasi Niger kadib markii inqilaabka military uu ka dhacay dalkaasi Niger bishii July ee aynu soo dhaafnay dhamaadkeedii. qorshahaasi oo ay wadeen wadamada galbeedka Afrika ee ku bahoobay ururka dhaqaalaha ee ECOWAS ee galbeedka Afrika, waxaana la sheegay inay soo kala dhex galeen Algeria wadamada ECOWAS khilaafka ku saabsan sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa arrimaha ka taagan dalkaasi Niger.
xukuumadda dalka ciraaq ayaa ka cadhootay duqaynta ay ka wadaan diyaaradaha dagaalka ee ciidamada turkigu deegaamada ku dhararan xuduudda u dhexaysa turkiga iyo ciraaq ee waqooyiga dalkaasi ciraaq taasi oo la sheegay inay ku dhinteen duqayntaasi dad rayid ah oo beeralow badan oo ku dhaqan deegaankaasi afhayeenka xukuumadda ciraaq ayaa ku eedeeyey turkiga in ay diyaaradihiisu ay ku soo xadgudbeen xadwada dalkaasi ciraaq iyo weliba qarannimadiisa waxaanuu maamulka turkigu u soo jeediyey in uu xaq dhowro madax bannaanida dalkaasi ciraaq iyo qarannimadiisa oo la joojiyo xadgudubyada ay ka wadaan ciidamada turkiga gudaha dalkaasi ciraaq deegaamadaasi ay duqayntu ka socoto ayaa waxaa la sheegay inay ka howlgalaan dagaalyahaniinta kurdiyiinta ee b k k ee dagaalka kula jira ciidamada turkiga kuwaas oo turkigu u aqoonsan yahay inuu yahay urur argagixiso oo amni daro ka wada gudaha dalkaasi turkiga waxaanay mas-uuliyiinta turkigu ku eedeeyeen xukuumadda ciraaq inay ka gaabisay in ay dalkeeda ka saarto kooxaha hubaysan ee ka tirsan ururka shaqaalaha b k k ee mucaaridka kurdiyiinta ee dalkaasi turkiga ee weerarada ka soo abaabula waqooyiga dalkaasi ciraaq geesta kalena xukuumadda ciraaq oo kaashanaysa maamul goboleedka kurdistan ee waqooyiga ciraaq ayaa waxay ciidamadeeda ilaalada xuduudda ee federaalka deegaamadaasi ku yaala xuduudda u dhexaysa labadooda wadan ee turkiga iyo ciraaq si loo sugu bay yidhahdeen amniga deegaamada la sheegin inay ku howlgalaan kooxaha hubaysan ee kurdiyiinta ee ka soo horjeeda xukuumadda turkiga warkii subaxnimood ka dhegaysanaysay radio hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan kheyrta qiimaha badan ee hawada naga dhegaysanaysay baahintan subaxnimo saaka waa naga intaasi warkaasina gabagabo wuxuu taxaaniin idaacadeeda noo soo taxnaa saacaddu markay ahayd 6 iyo barkii subaxnimo hata saacaddu waxay kusii saqaysaa 8 iyo barkii subaxnimo waxaa la soo gaaray waqtigan hawada isku macaslaamay jirnay dhammaantiin waxaan idiga tegnaa tan iyo intaynu ku kulmina waa baahinta xigtee kowda duhurnimo waxaanu dhammaantiin idiga tegnaa sida iyo dhabaadgeliyo halkani وراديو hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland